Asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Isku soo noqod wanaagsan. Maanta waxaan rabnaa inaan qaadano cashirkeennii saddexaad ee ku saabsanaa MS Word-ka. Maanta waxaan halkan uga hadlaynaa shortcut aad ugu muhiim ah markaad wax diyaarsanayso. Cashirkeen maanta diiradda wuxuu saarayaa sida aad MS Word-ka qoraal aad ugu diyaarsan lahayd. Marka ugu horeyso waxaan soo kacsanayaa MS Word-kayga anigoo ku soo kacsanayo shortcut-ka ah Window key plus R, kadibna run box-ka aad ku qorayso WinWord, kadibna waxaan leedahay enter ama okay. Markuu sidan kugu soo kaco waxaan rabaa maanta inaan ku diyaarsado qoraalkaas oo aan ka soo qaaday in la soo diray ama jaamacad laga soo diray ama aniga aan rabo inaan dad aan gaarsiiyo aniga aan diyaariyo. Qoraalkayga maanta wuxuu ku saabsan yahay ciwaanka ah government dowladda. Ciwaan waxaa ugu dhigayaa waxa la yiraahdo what's a government. waxaa la yiraahdaa government kadibna calaamad su'aal ayaan saaraya. Qoraalkan waan select gareynayaa. Waxaad ku select gareynaysaa inaad muuskaada qaadato kadibna left click aad taabato aad ku jiido ama control A inaad dhahdo. Intaa kadib waxaan ku dhufanayaa halkaani font group-ka. Font group-ku waxa laga bedelaa farta. Kadib waxaan dooranayaa fartan ay ugu qoran tahay New Times. kadibna farta waxaan ka dhiganayaa halkaani font size-ka 12 ayaan ka dhiganayaa. kadib halkaas ayaa click ku siinayaa enter ayaan leeyahay. Waxaan adeegsanayaa marka Google Form-kayga ama platform Google-ka. kadibna waxa ii diyaarsan ciwaan ka hadlayo government. Horta government maxaa la yiraahdaa? Horta waa tan meeshaan government aan kusoo qoray waa Google ayaan kusoo qoray Google-ka. kadibna halkan ayaan waxaan ku sameynayaa qoraaladan inaan qaato. Halkaas ayaan select gareynayaa ama aan calaameysanayaa ilaa halkaasi. Markaan sida aan sameeyo waxaan sameyn karaa inaan qoraalkan koob aan ku qaato oo waxaan leeyahay control plus C. control iyo waxaa isla qabanaysaa xarafka C ah sida waxaad ku koobi gareysay qoraalkaada. kadib waxaad u laabanaysaa halkaan ee qoraalka aad ku diyaarsanaysay. qoraalkii aan soo koobiyey waxaan u baahanahay inaan halkan keensado. sidaan ku keensan karaa marka? waxaad taabanaysaa hal mar si wadajir ah control V. control iyo waxaa isla qabanaysaa iyo xarafka V ah. kadibna qoraalkaada ayaa halkan ku imaanaya. waxaan leeyahay marka full stop. kadibna waxaan leeyahay enter. qoraalka hoos ayuu ii aadayaa. marka habkan hadda aan isticmaalayno waa habka hal qoraal aan kusoo qaadeen anigoo koobi isticmaalayn. sideen marka aan qoraaladan badan aan kusoo qaadi karaa anigoo hal mar aanan soo bixin? Su'aale waxaan isticmaali karaa inaan qoraalka halkan aan ka bilaabo ilaa halkan aan select gareeyo kadibna control C aan dhaho. kadib markaan dhaho qoraalkii meeshaan ku diyaarsanaya imaado control V inaan dhaho. qoraalkii dhan halkan ayuu ii yimaaday. weli waan sii soconayaa oo waxaan sii raadinayaa wax lala jeedo history of government ayaan raadinayaa. halkan ayaan ku dhufanayaa nambarka 2 history of government. kadibna wuxuu ii geynayaa halka lagu hadlayo government-ga. marka ugu horeysa horta waa inaan ciwaanka aan qortaa aniga. kuma xijin karaa cashirkan hadda aan qorayay oo waxaan leeyahay halkan imaana enter oo waxaan meeshaas ku qorayaa control V. waxaan raacinayaa xarafka ah government. history of government. sidaas waxaa ku diyaarisay qoraalkaas. haddii uu kaa qaldamo halka right click ku dulle kadibna halka click ka dooro kadib enter leh. hadda ayaan u laabanaa marka qoraalkayga. tusaale kaleeto waxaan rabaa inaan halkan qoraalkan ilaa halkan aan select gareeyo anigoo dhammaan aan select gareynin. qoraalkan ayaa imaanaya halkaani. waxaan leeyahay control C. halkan ay imaanaysaa qoraalkaada ayaa select gareynaysaa. waxaad leeysaa control C. sidoo kale halkan ay imaanaysaa qoraalkaada waxaad leeysaa control C. kadibna jumladda ugu dambeyso control C ayaad leedahay. kadib waxaan tagayaa qoraalkayga meeshaan ku qoranayay oo waxaan taabanayaa window V. window V markaan taabto dhammaan qoraalada dhan waan soo koobiyey halkan ayay ku jiraan. waxaa aragtaa meeshaani qoraalka halkan ku jira. tusaale yar waxaan soo fiirinayaa qoraalkayga intuu ka bilaabo. waxaan tagayaa halkan browser-ka ah wuxuu ka bilaabay the moment ayuu ka bilaabay. waxaan fiirinayaa marka window
plus v ayaan leeyahay what in the moment. Click ayaan ku siinayaa, enter aan leeyahay. haddana window v ayaan taabanayaa, waxaa ku xigo development. Click ayaan ku siinayaa, window v ayaan taabanayaa, haddana farming ayaa ku xiga. Click ayaan ku siinayaa, window v ayaan taabanayaa, starting ayaa ku xiga. meeshaas hadda waxaad ka ogaatay qoraaladaada dhammaan inaa hal mar aad ka koobiyin karto, hal marna aad baast aad ka soo dhigi karto. sidan hadda waxaan ku diyaariyay marka hal warqad oo aan uga hadlayo wax lagala jeedo systemka governmentiga ah iyo hanaanka historyga ama taariikhda ay soo martay dowladda. waxaan sameynayaa marka fartoo dhan inaan hal mar bedela ayaan rabaa. control a ayaan leeyahay, halkan ayaan tagayaa banaan, kadib new times ayaan ka dhigayaa. new times markaan ka dhigo waxaad aragtaa farta meelaha berlin la yiraahdo, calaamadahan buluuga ah ama farta buluuga ah hoos ka xariiqan waxaa loo yaqaanaa hyperlink. waxaan taabanayaa marka control iyo space bar. control space bar markaa taabato dhammaan qoraaladu way ka wada baxayaan waxa ay siteen. sidaas si lamid haddana waxaan leeyahay marka farta cabirkeeda ii toos, halkaan ku dhufo farta aan mideeyo, hal far ayaan ka dhigay, cabirkeedana halkaan furo waxaan ka dhiganayaa 14. sidaas hadda marka waxay ii tahay 2 page oo farti aan ku qortay aniga. weli marka waxaa iisii dhiman qoraalada meel yar number ku jira ayaa jiro. waxaan sameynayaa ciwaankan horta bold ayaan ka dhigayaa anigoo isticmaalayo p dani ama shortcutka ah control plus p. waan tagayaa qoraalka meeshani waxaa dhacay saameyn ku jirto malahan, hoos ayaan u baxayaa, waan u degayaa. tusaale kale marka qoraal lagu soo diray aad raadinaysay waxaa laga bixiyaa nambaradani 5 3 bracketka ku xiran, waxaasoo dhan waa laga saaraa. kanoo kale bisheeda dooftay waa ka saarayaa, kor ayaan u baxayaa, hoos ayaan u degayaa. haddana kanoo kale hadda fiiri waa inaan ka saartaa. sidaas ugu saaraysaa. marka sidan hadda waxaa ku qaadatay marka aan ku baranay halkani sida wax loo soo koobiyeeyo, sida hal mar wax badan aad u koobiyeyso oo hal mar baas aad usoo dhacdo adoo midka kale usoo kaabixinin. sidaas si lamid ah waxaa jira marka shortcutyo kale, xarfo kale ayaa jiro oo asigana very important oo aad loo isticmaalo. waxaa ka mid ah qoraalkan ayaan rabaa hadda nambarkan aan iska daleedo, qoraalkan ayaan rabaa hadda kana sidaas oo kale aan iska daleedo, qoraalkan sentence ayaan rabaa hadda inaan meesha ka qaado oo meel kale aan geeyo. waxaan isticmaalayaa kadib halkan hoose imaanaya enter control plus v bast ayaan isticmaalaa. qoraalkan kore ayaan kasoo guuriyey, halkan hoose ayaan keenay. taasna waxay ka mid tahay qoraalada hababka very important ama shortcutyada aadka loo isticmaalo. waxaan rabaa marka ciwaankani inaan dhexda geysto, italic ka dhigo, hoos aan ka xariiqo. waa shortcutyada kale aan ku dabaqayn aan qaadanayno. shortcutka kale wuxuu yahay marka kow inaan farta markaan rabo inaan jiijiifiyo ama italic inaan ka dhigo aan u baahanahay, waxaan taabanayaa i-daas ama waxaan isticmaalayaa shortcut ah control i. midna ogow mar walba aad shortcutka kor aad ka xibsan tahay ama shortcut aad isticmaalayso more professional, waxaad ka khibrad badidaa midka computerka maarta mar walba ribbonka ka doonta shortcutyada. haddana hoos ayaan rabaa inaan ka xariiqo, u-dan ayaan taabanayaa ama control plus u ayaan isla taabanayaa, control iyo u. sidaas hadda waxaan ku sameeyaa kow qoraalka waan bold ayaan ka dhigay, waa weynay, italic waan jiijiifiyey. sidaas la mid ah hoos ayaan ka xariiqay. ciwaanka dhexda inaan dhigo ayaan rabaa, dhexda ku aadiyo. maxaan isticmaalayaa? waxaa la isticmaalaa horta kow waxa la yiraahdo alignment. alignmentigu waxay micnaheedu tahay qoraalada inaad hadba dhan aad geyso, bidix midig dhexda inaad geyso. hadda qoraalkaygu wuxuu ka bilowdaa left alignment, qaybta bidix ayuu ka bilowdaa. haddaan rabo qaybta midig inaan geeyo waxaan taabanayaa midani ribbonka paragraph groupka. qoraalka waxaad aragtaa hadda inuu u baxay qaybta midig. sidaas la mid haddaan rabo inaan dhexda ku aadiyo waxaan isticmaalayaa center alignment. shortcutyadoodu waa maxay marka? kow shortcutka ugu horeeya left alignment waa control l, qoraalka bidix inuu ka bilaabo. shortcutka ku xiga wuxuu yahay qoraalka midig haddii rabto inaad ka bilowdo waxaad taabanaysaa control plus r kadib wuxuu geenaa qoraalkaada qaybta midig. haddaad rabto qoraalkaada dhexda inuu aado ciwaanka control e ayaa taabanaysaa,
oo center alignment ah. Sidaasi waxay marka muhiim kugu noqonaysaa qoraalkaada si fudud inaad u diyaarsato. Qodobka xiga kale wuxuu yahay waxaan u baahanahay qoraalkayga border inaad soo gashto, warqadda calaamad wareeg inaad soo gashto. Sideen ku soo gashanaya marka? Waxaad ku soo gashan kartaa kow waxaad tagaysaa page alignment-ga. Page alignment-ga markaad tagto kadib waxaad ka dooranaysaa border and shadings oo ku yaala page background group. Markaad ka doorato wuxuu ku keenaa halkaani box ayaad ka dooranaysaa kadibna calaamadda aad rabto ayaa halkaani ka soo baxsanaysaa. Kadib waxaan leeyahay okay, warqadeeda hadda waxaa aragtaa in ayadu dhan border ay yeelatay. Haddaad rabto borderku waa iska bedeli kartaa oo arts ayaad isticmaali kartaa, waxyaabo la qurxiyey. Halkan hoose imaanaysaa none ay ku qoran tahay kadibna hoos ayaad u degaysaa. Artskan badanaa waxaa loo isticmaalaa shahaadooyinka marka la sameynayo. Kadibna okay ayaan leeyahay, waa taasaa warqadaas sidaas ayay noqonaysaa oo tii haddaay borderku ka baxaya. Hanaankan ayaa waxaa la yidhahdaa hanaanka wax diyaarsashada adigoo isticmaalaya shortcut-yada aad ugu muhiimka ah marka qoraalada aad diyaarsanaysid. Fadlan subscribe saar una share garee asxaabtaada si ay ugu faa'iidaystaan cashirkaani.